muranka doorashada ee Soomaaliya ma la joogaa xilligii ay gacan kale dhexdhexaadin lahayd. Waxaynu ku soo gudbin doonaa qodobo dhowr ah oo si toos ah ugu ogaan doonto xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya. Haddii ay warbixintan ku soo gaartay daawade, fadlan like saar muuqaalkan lana sii wadaag saaxiibada oo share garay. Xilli toddobaadkan lagu wado qaybaha Soomaalida in shir loogu qabto xerada Afisiyoni, waxaa muuqato qodobo badan oo ismarwaa ah oo qaarkood horey u jireen halka kuwa kalena hadda ay soo ifbaxeen. Qodobada hore u jira ayaa waxaa ka mid ah ismarwaaga siyaasadda ee doorashada Soomaaliya. 5 bil kadib heshiiskii 17 Sebtembar iyo 36 cisho oo ka soo wareegatay muddo xileedka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxa uu ismarwaag ka jira doorashada, taas oo keentay in loo baahdo faragelinta beesha caalamka iyo in ay gogol u dhigto arrimahan. Hay-adaha la doorto ee dowladda oo ka dhammaaday muddo xileedka dastuuriga ahaa. Baarlamaanka Federaalka waxa uu muddo xileedkiisii dhammaaday Diseembar 17, 2020, halka madaxweynaha uu muddo xileedkiisu ku ekaa February 8, 2021. Sidaas ay tahay lama diyaarin ciddii bedeli lahayd hay-adahaasi oo waxa iska wataan shaqadooda, taasi oo muran dhalisay. Hirgelinta heshiiskii 17 Sebtembar oo fashilmay. Heshiiskaas ayaa dhigayay in la magacaabo 3 guddi doorasho oo ay ku jiraan labada heer dowladda iyo midka khilaafaadka, in xildhibaanka doortaan ergo 101 ah, in maamul kasta uu 2 magaalo doorasho ku qabto, iyo in qorshaha doorashada fulintiisu bilaaban lahayd November. Heshiiskaas waxa uu fashilmay kadib markii maamulka Farmaajo uu magacaabay guddi ka kooban askar iyo shaqaale dowlad, sida mucaaradku ay ku eedeeyeen. Fashilka Dhuusamareeb 4 fadhi dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyadu ku lahaayeen caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb ayaa burburay February 6. Shirkan oo loo yaqaan Dhuusamareeb 4 waxa uu burburay kadib markii madaxweynihii xilliga uu ka dhammaaday ee Farmaajo uu gobolka Gado u tanaasuli waayay maamulka Jubbaland. Qodobada kale ee la isku mari waayay waxaa ka mid ahaa guddiyada lagu muransan yahay ee doorashada iyo xulista matalayaasha Somaliland. Haddaba, shirka toddobaadka lagu wado in uu ka dhaco Muqdisho lagama bilaabi doono halkii lagu kala tegay Dhuusamareeb 4 ee ahaa Gado, guddiyada doorashada iyo Somaliland, iyo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, iyo xataa midowga musharaxiinta waxa ay wataan qodobo kale oo cusub, waxaana ka mid ah 1. Farmaajo in uu wareejiyo awoodaha. Arrinta ugu muhiimsan ee miiska saaran waa in uu Farmaajo ku saxiixo teendhada Afisiyoni in aanu isticmaali karin awoodaha dastuuriga ee uu yahay madaxweyne hore musharaxna ah. Sidaasina waxaa hore u sameeyey Xasan Sheekh Maxamuud. 2. Waxaa qodobada miiska saaran ka mid ah shirgudoominta shirka Afisiyoni, iyada oo Puntland, Jubbaland iyo midowga musharaxiinta ay ku doodayaan in Farmaajo laga wareejiyo shirgudoominta mar haddii uu dhammaaday muddo xileedkiisa, si aanan shirka u soo xirin. 3. In musharaxiinta ka qayb galaan. Waxaa miiska saaran in saamileyda siyaasadda ay shirka tagaan, gaar ahaan midowga musharaxiinta oo ay ku jiraan xubno horey uga soo noqday dalka madaxweyneyaal, iyo sidoo kale kuwo golo wasiiro ka mid ahaa oo siyaasadda Soomaaliya door muhiim ah ku leh, maadaama madaxweynihii xilligiisa u dhammaaday uu heshiis buuxa la gaari waayey maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka. Qodobka 4. Xilka qaadista taliyayaasha. Waxaa miiska saaran in xilka laga qaado taliyayaasha ku lug lahaa weerarkii February 19 iyo kuwa laga shakisan yahay in uu maamulka Farmaajo adeegsan karo xilliga doorashada. Haba ugu badnaatay qodobka ah February 19 oo ahaa qodob muhiim u ah, maadaama 2 madaxweyne hore oo mas'uuliyadda si dimuqraadiyad la isugu wareejiyey xilli habeen ah lagu weeraray hoteelkooda oo madaxtooyada Soomaaliya u jira wax ka yar nus kiiloomitir. Qodobka 5. In amniga doorashada lagu wareejiyo booliskii hore. Puntland, Jubbaland iyo midowga musharaxiinta waxay qabaan in amniga doorashada laga reebo ciidanka Haramcad oo lagu bedelo booliskii hore iyo taliska Amisom. Qodobka 6. Baarista dhacdadii February 19. Waxaa kale oo qodobada ka mid ah in la baaro rasaasayntii madaxweynayaashii hore loogu geystay hoteelka Maa'ida ee magaalada Muqdisho February 19
iyada oo madaxtooyada Soomaaliya ay mas'uuliyaddaas ka aamustay. Qodobka 7 dhismaha gole xilliga kala guurka ah. Waxaa miiska wadahadalka ee Afasiyoni saaran in la magacaabo golo ay isugu jiraan guddoonka baarlamaanka, xukuumadda iyo maamul goboleedyada si ay mas'uuliyad ahaan marxaladda kala guurka ah u maamulaan. Qodobka 8 bulshada rayidka ayaa beesha caalamka oo ah cidda martigelinayso ka dalbatay in qayb shirka ka mid ah Afasiyoni ay korjoogto uga noqoto si fashilka arrintan looga ilaaliyo, dhexdhexaadna looga noqdo mowqifyada iyo go'aanada la gaarayo. Qodobka 9 mowqifka dowladda federaalka ah. Dowladda federaalka ah ayaa u muuqato mid ku adkaysanayso in Afasiyoni lagu saxiixo heshiiskii guddiyada farsamo ee Baydhabo February 16 in shir guddoon sii ahaado farmaajo iyo in uu doorashada maamulo iyo in aan laga gudbin awoodihiisa dastuuriga ah. Qodobka 10 mowqifka beesha caalamka. Beesha caalamka oo gogasha dhigtay shirka Afasiyoni waxa ay mar walba ku celcelisaa in aan la qaban doorasho hal dhinac isbarbar socda ama in laga fogaado qalalaaso abuuri kara in dimuqraadiyadda curdunka ah lagu istaago. Haddaba sida muuqato xalku waa mid adag, xaaladuna waa mid gacanta ka baxday. Waxaase rajo weyn laga qabaa sida beesha caalamka ay kaalin hogaamineed uga qaadan karto guulaysiga shirkan Afasiyoni una cadaadin karto qaybaha Soomaalida ah ee shirkan ka qaybgalaya. Farmaajo waxa uu marar badan warbaahinta u sheegay in uu tanaasulay, haddana dhammaan qodobada la isku hayo waxa ay madaxda maamul goboleedyadu sheegeen in muhiim ay u yahay isagu in uu tanaasulo maadaama qodobo aan laga gudbi karin ay tahay. Dhinaca kale, ka qaybgalka shirkan waxaa shuruudo ku xiray maamulada Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Labada madaxweyne ee kala maamula Laftagareen iyo Qoorqoor waxa ay ku sugan yihiin dalkan Turkiga, waxaana ay sheegeen in shirkaas ay ka qaybgalaynin. Tallaabadan waxa ay dadka qaarkood ee siyaasadda falanqeeya ku fasireen in Farmaajo uu gadaal ka riixayo maadaama maamulada mucaaradka ku ahaa ee Puntland iyo Jubbaland ay yimaadeen magaalada Muqdisho, haddana uu doonayo in uu labadan maamul carqalad shirka uga dhigo si uu waqtiga u sii dheereysto. Lama se ogo xaaladda meesha ay ku dambayn doonto.